waxaa maanta wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ka qabsoomay shirweynaha isugu yimaadeen hogaamiyayaasha kala duwan ee wadaagayaasha kuwaasi oo isugu jira wasiirro agaasimayaal guud agaasimo waaxeedyo iyo madaxda hay'adaha kala duwan ee ka howlgala Somaliland. shirkan oo uu gudoominayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ahna kusimaha wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ayaa waxaa ka soo qayb galay hay'adaha kala duwan ee dawladda kuwa qaramada midoobay hay'adaha caalamiga iyo goobjoogayaal kala duwan oo ka socday wadamada Somaliland ka taageera arrimaha horumarka iyo mucaawimooyinka. kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka, agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland, xubno ka socday wadamada Somaliland ka taageera arrimaha horumarka iyo mucaawimooyinka. ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu ka warbixiyay ujeedada kulankaasi. isku soo dhaweynayna wasaaradda qorshaynta qaranka kulankeennii labaad bilihii u dambeeyay aynu yeelano ku wajahan kulanka guud ee wadaagayaasha kala duwan qaab dhismeedka aynu ku isugu dabaridno horumarka ka socda waddankeena. kulankeennan oo ah intersectoral coordination forumkii labaad aynu yeelano wuxuu ku wajahan yahay oo madasha fadhiyo isugu yimid hogaamiyayaashii sectorskii sagaalka ahaa ee soo yeelanaya kulamada muddooyinka u dambeeyay ayaa madasha fadhiya. ujeedaduna waxay tahay inaynu xog isku weydaarsano hawlihii noo soo qabsoomay muddooyinkii aynu kala maqnayn, muddooyinkii aad shirarka soo lahaydeen, guulihii la gaadhay iyo khibradaha ay tahay in kala faa'iideysto in madashan lagu kala faa'iideysto haddii la yiraahdo. intaasi kadib waxaa shirka si rasmi ah u daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Engineer Xuseen Ibraahim Buuni ahna kusimaha wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka, waxaana hadaladiisii kamid ahaa marka koobaad mahad leh iskugu keenay maanta madashan iyo munaasibadan. waxaa inoo soo qabsoomay shirar kala duwan oo runtii sagaalka wadaage ee ay ka kooban tahay wadaagayaashan guud aynu goobtan maanta u fadhinaa. shirarkaas sagaalka wadaage ama sagaalkaas sector waxay nooga soo qabsoomay 70%. hawlihii iyo shirarkii soo qabsoomi lahaa baa ka soo qabsoomay. marka farxad weyn bay runtii noo tahay inaanu dardargelinta iyo hirgelinta kulamada wadaagayaasha ama xaafka qalad sectorska lagu yiraahdaa inay noo soo hirgalaan. maanta waxaynu halkan u wada fadhinaa oo aynu iskugu nimid kulankii subsectorska hogaamiyayaashooda iyo ku-xigeenadooda, the subsector chairs and co-chairs waxa afka qaladna lagu yiraahdo and secretariat. marka runtii farxad weyn bay noo tahay kulamada noocan oo kale waxaynu isku weedaarsanaa macluumaadka ku saabsan hawlaha ka socda wadaagayaasha. sidoo kale waxaynu kaga wada hadalnay inuu isku weedaarsanaa practices iyo experience ka wanaagsan ee ku saabsan horumarka cusub ee aynu runtii qorsheynayno. waxaynu sidoo kale kaga wada hadalnay inuu ka doodnaa cross cutting intersectoral issues ka waxa afka qalad lagu yiraahdo. marka runtii farxad bay noo tahay inaynu maanta halkan iskugu nimaadno, waana idin soo dhaweynaynaa. kulligeenna waxaynu ka wada shaqeynaynaa hadday tahay dadka inagala shaqeeya horumarka iyo arrimaha bani aadamnimada oo hay'adaha donorska, UN agencies iyo international organizationska iyo dawladda Somaliland waxaynu ka mideysanahay inuu ka wada soconaa sidii Somaliland horumarkeeda oo runtii mid la taaban karo uu noqon lahaa loo gaadhi lahaa, sidoo kalena looga midho dhalin lahaa qorshaha horumarinta qaranka ee runtii qarankani uu leeyahay. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa, waan idin soo dhaweynaynaa. shirkuna waa inoo furan yahay, waad mahadsantihiin. wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo madashaasi ka hadlay ayaa sheegay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wasaaradda qorshaynta qaranka kulankan ay nagu soo casuuntay. kulanka oo kolley more technical u badan oo ay saraakiisha wasaaradda horumarinta caafimaadkana ay la joogaan shaqooyinkan dee qaybta ka ahaa waxna ka qaban jiray. anigu inta ku soo koobayaan waxa weeyaan waxaanu u baahannahay qaran ahaan inaynu caawimooyinka kala duwan aynu ka helayno dadka
dadkoodii intay cashuurahoodii ka soo ururiyeen inoogu soo gurmadeen inaynu qaran ahaan iyo ummadeenna inay soo gurmadaan hay'adaha kale caalamiga ah iyo dhammaan deeqahaas oo dhan ayna soo gaadhay waxaanu u baahanay qaran ahaan inaynu sida ugu hufan ee efficiency-ga inaynu uga faa'iidaysano wasaaradda qorshaynta qaranka waan uga mahadnaqaynaa prioritisation-ka iyo kala horreysiinta iyo kala mudnaanta ay u samayso marba waxaynu haysano si aynu u gelino meelaha ugu habboon waxaan isleeyahay kulamadaas unbuu xidhi toosan la leeyahay oo sababtoo ah waxaynu u baahannahay inaynu mar walba isu nimaadno howlaha wixii inoo qabsoomay wixii naga qabyadaa iyo xaggaynu u soconno inaynu ka wada hadalno oo dowlad ahaan iyo deeq-bixiyayaashii hay'adaha caalamiga ah inaynu isla eegno wasaaradda qorshaynta qaranka kaalinta ay ka qaadato qaranka horumarkiisa aad iyo aad baan uga amaanayaa ka wasaaradaha kale dowladdana diyaar baanu nahay inaanu mar walba inaanu guideline-ka wasaaradda qorshaynta qaranku ay ku bixiso marba mudnaanta qaranka iyo horumarka qaranka halka loo hagayo inaanu kula shaqeyno inahaasuma ku soo koobi lahaa waxaan rajaynayaa shirkan noqdo shir midhadhal iyo wax fiican oo ummadda iyo dadkeena anfaca inay ka soo baxaan ugu dambeyntiina waxaa falanqayn dheer oy ka qayb qaateen kasoo qaybgalayaashii kulankaasi laysula gartay sida ay muhiim u tahay joogtaynta isku xidhnaanta kala duwan ee u dhaxaysa dhammaan daneeyayaasha horumarka si kor loogu qaado isla socoshada iyo buuxinta galdaloolooyinka waxaana dhammaan wadaagayaashu ballan qaadeen hirgelinta waxyaabaha laysku raacay iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ka dhaxaysa